ma tahay arday danaynaya inuu wax ku soo barto jaamacadaha ugu tayada fiican dunida sida kuwa ku yaala Turkiga, Cyprus, Greece, Romania, Bulgaria, Poland, Georgia, Ireland, America, China, Russia, Ukraine, Khaliijka iyo kuwa kale oo ka tirsan midowga Yurub. ma tahay arday danaynaya inuu xirfad caafimaad ku soo barto college-ka caalamiga European Vocational High School Departments in Istanbul, kaasoo ku suurtagelinaya dibloomada kadib inaad ka diyaariso bachelor degree mid ka mid ah jaamacadaha ugu facaweyn dalalka Turkiga ama Qubrus. ma tahay arday danaynaya inuu ka diyaariyo shahaadada TOEFL ama IELTS mid ka mid ah kolleejyada ugu caansan dalalka Mareykanka iyo Malaysia. ma tahay arday danaynaya inuu ku soo sameeyo internship ama tababar wadamada Afrika, Turkiga sida qaybaha caafimaadka, engineerinka, ganacsiga, maamulka, xisaabaadka, cilmi baarista, nashqadeynta fashionka, qaybaha qurxinta dumarka iyo wixii la mid ah. ma doonaysaa barashada luqadda Turkiga ama Ingiriiska qaab online oo casri ah adiga oo jooga gurigaada ama goobtaada ganacsi? ma tahay bukaan danaynaya caafimaad inuu u tago isbitaalada ugu tayada wanaagsan dalalka Turkiga iyo India ama Malaysia? ma doonaysaa adiga iyo qoyskaaga inaad iibsataan guryo jaban oo casri ah kuna yaala dalka Turkiga? ma tahay ganacsade danaynaya inuu xiriir ganacsi la sameeyo shirkadaha ganacsi dalka Turkiga kuwooda ugu tayada wanaagsan si uu ganacsigaada u guuleysto? haddaba haddii ay jawaabtaadu haa tahay, shirkadda Orange Worldwide in ka badan 40 xafiis dunida dacaladeeda ku leh, gaar ahaan geeska Afrika, ayaa waxay diyaar u tahay inay idinka haqabtirto baahidiina guud iyadoo si hufnaan iyo si degdegsiinama idinkugu adeegi doonto haddii uu alla yiraa. wargelin: imtixaanka YOS oo ah imtixaanka aqbalaadda jaamacadda Turkiga waxaa loo fariisan doonaa wejigiisa 3 3 Agoosto 2019 haddii uu alla yiraa. wixii faahfaahin intaasi dheeriya kala xiriira xafiisyada shirkadda Orange ay ku leedahay geeska Afrika ama dunida ee shaashada kaaga muuqda.